caqiidadaadu maxay tahay? caqiidadaydu xoogaa diin la'aan ayay ku salaysan tahay. 3 bilood ayaan xirta ku jiray. 5 waqti salaadayda waan dukan jiray, laakiin wax ii toosayay ma jirin. wax walba way iga sii xumaanayeen. insaanku qadarkiisu horaa loo qoray. muxuu Allah gabadha 3 jirka ah qadar noocaas ugu qoraya? kan kufsiga geysanayna qadar noocaas ugu qoraya. abuuraha ayaan dambiga dusha ka saaraya. Allah ha xadido qof walba doonistiisa, laakiin qof xun dhan yuusan jirin. qof walba ha wanaagsanaado, qofna xumaan yuusan samayn. ma ixtiraamayo cadaaladiisa. adigu sama dooni lahayd mid kufsi geystay inaad isku darajo noqotaan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. mawduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay caqiidooyinka. caqiidadaadu maxay tahay adigu? caqiidadaydu xoogaa diin la'aan ayay ku salaysan tahay. fikirkaasi waan ku raacsanahay. waxaan kaloo oran karaa ma ixtiraamayo cadaaladiisa. mana aqaano tani inay wax yar ka iman karto maseerkayga. marka hadda sidan oo kale naftayda ayaan isbarbar dhigayaa. tusaale yar ayaan ku siinayaa. anigu 18 sano ayaan jira. kuwa igu da ah oo gawaarida ugu qaalisan wataan ayaa jiro. aniguna intaan eego kuwa ayaan waxaan isweydiiyaa, ninkani gaarigan wuu kaxaysanayaa, kaa sidoo kale, kaana sidoo kale, anigu maxaan intaa u samayn waaye? markii aad sii egto welibana waa mid aanan soomin, salaadin, saki xitaa aanan bixinin. aniguse waqtigayga kuwan waan sameeyey. anigoo xitaa shaabad leh ayaan sameeyey, walaalkay iga weyn dartii. 3 bilood ayaan xirta ku jiray. 5 waqti salaadayda waan dukan jiray, laakiin wax ii toosayay ma jirin. wax walba way iga sii xumaanayeen. waxaan isweydiiyey aniguna oo waxaan idhi, rabbigaygiyow, adiga ayaan hortaada kuugu adeegayaa, waana kuu mahadceliyaa rabbigaygiyow. aniguse qolka kama aan soo bixi jirin anigoonan dukan salaad aan ugu mahadcelinayo. xitaa cunto inaan soo cuno uma soo bixi jirin. laakiin inay wax ii hagaagaan iska daaya wayba iga sii xumaadeen. gadaal markaan eegana waxaan arkaa mar waliba mid aanan Allah u mahadcelinaynin, mid aanan dukan oo mar walba sii taajiraya. kadibna waxaan dhahay, masaana cadaaladaadu, ma sidaana cadaaladaadu rabbigayow? kadibna waad ogtahay dhacdooyin kufsi oo carruurta yar loo geysto ayaa wadankeena ka jirto. kadibna waxaan dhahay, rabbigaygiyow, awood weyne ayaa tahay, aad baana u awood badan tahay, maxaad u caawin la'dahay dadkaas? tallaabo tan ayaa diin la'aan kaa dhigtay, ma dhihi karnaa? ha, tan ayaa dhankaa ii jiiday. hagaag walaal, qof daacad inaad tahay ayay iigu muuqataa runtii. si daacadnimo ku jirto ayaad u hadashay. daacad inaad tahayna way caddahay. haddaba middan ayaan ku weydiinayaa, su'aalahan markii aan xalino kadib si xaqiiqo ahna maskaxdaada u si wadajir ahna aan u qeexno, jawaabo macquul ahna aan u helno, mar labaad ayaan islaamnimada ku noqonayaa ma isleedahay? dabcan ha, yacni su'aalaha maskaxdayda ku jiro jawaabo sax ah markii aan u helo kadib maxaa ii diidaya inaan noqdo? hagaag, dhacdooyinka noocan oo kale haddii ay dhacaan xitaa, yacni sooma dhihin qof ayaa taajiraya. inkastoo muslim aan ahay, haddana waxaa ku dhici karaa xaalad ka liidata ka gaalka. iyo midda labaad, markaad eegto adduunyadan dusheeda, dembiyo fara badan iyo sidaas sheegtayba waxaa jiraan dad fara badan kuwaasoo dhibaato u geysta kuwa kale. haddaba markii aan labadan mawduuc eegno inay kuwan jiraan, islaamka iyo qur'aanka qalad inay yihiin daliil ma u noqonaysaa adiga ahaan? aniga ahaan way noqonaysaa. waayo walaalkaygii aan kuu sheegayay ayaa wuxuu igu yidhi, adiga si kastoo diintaada ugu dhagnaataa, si kastoo Allah ugu mahadcelisaa, markaas waxaad rabto oo dhan waad helaysaa. aniguna intaan aaminay hadalkaasi ayaan wadadani galay. anigu hadda Allah waan u mahadceliyaa, salaadahayguna waan dukadaa. dabcan uma samaynayo arrintaas inay waxyaabahayga igu hagaagaan. jacayl aan u qabo iyo aaminaad aan aaminsanahay darteed ayaan u galay. haddaba wadadan aan aaminaada iyo jacaylka aan u qabo darteed aan u galay, waxba iguma hagaagin. inay ii hagaagaan iska badaaye wayba sii xumaadeen. kadibna fikirkan ayaan helay. waan fahmay. laga yaabay inaadan awoodin inaad si sax ah u hesho macnaha aasaasiga ah. sababtu ma taqaanaa? waayo insaanku halkan waxa loogu soo diray caadi ahaan inuu wax ka barto. sida meel maktabad ah markii aad timaado, meeshan maxay sidan oo dhan ugu degan tahay? intaan dhahno dhanka xumaanta ma ka eegi karnaa? waayo halkaasi sababta loo furay ayaa sidaa ah. ama meesha jirka lagu dhiso markii aan tagno kadib aan ku aragno qof siduu u jimicsanaya aad u daalay iyo qof jimicsiga darteed dhiig ka yimid, kadibna xarunta jimicsiga waa meel xun ma dhihi karno. ee kasoo horjeedkeeda, maadaama tani ay tahay ujeedada loo furay, waxaan leenahay dhacdadu micno ayay leedahay. si kastaba ha noqotee, halkan dadku awoodahooga waxbarasho ayay ku kordhiyaan, horumar ayayna sameeyaan. tanoo kalena ujeedka loo furay adduunkan, xiriirkan markii aan eegno maxay tahay? waxay tahay waa meel lagu kordhinayo heerarka waxbarasho ee dadka. waxbarasho ruuxi ah si ay naftooda u horumariyaan ayaa lagu soo diray. imtixaan oo kale. ha, asaaska imtixaanka markaynu eegno sidan ayaan u fikiri karnaa. sida meesha jirdhiska horumar dhaqaale looga samaynayo, dhibaatooyinka ka jira halkaas runtii waa kuwo aan wax u dhimayn horumarka meeshaas. dhibaatooyinka adduunyadan ka jira maxay noqonaysaa? waxay daliil u tahay horumarka ruuxiga ah ee aadanaha. marka waa astaanteeda. markii aan dhankan ka egno, sooma soo sheegin shaleemadu inay meel aamusan noqotaa inay meel wanaagsan tahay ayay calaamad u tahay. xiriirkanna inay dhibaato ka jirto dunidan, khaasatan qofka islaamka garanaya ama kan muslimka ah inuu dhibaatooyin fara badan ku noolaado, waxay tilmaam u tahay horumarka ruuxiga ah ee halkan ka jira. yacni awalba ujeedada loo furay meesha waa in Allah la barto. sabar iyo imtixaanada ka jira in lagu hormariyo nafta. maxaan leenahay in kuwan la arko waa caadi?
yacni sooma dhihin adiga markii aan si wanaagsan u cibaadaysto markaas ayayba wax iga sii xumaadaan laakiin waxaan dhahnay soo maaha dhibaatooyinka halkan ka jira waa in lala kulmaa imtixaanka si aan uga gudubno tusaalihii aan ku siiyey keliya maaha tusaalooyin kale xitaa way jiraan waa xaalad xun laakiin tusaale ayaan ku siinayaa gabar 3 jir aan ka soo qaadno kuwa aan dhiiga lahayn ee carruurta yar u geysanaya dhibaatada aan ka soo qaadno iyagana allah waa uu weyn yahay allah waa uu ka weyn yahay ayaan leenahay allahas weyn intuu xaaladan arko muxuu u caawin waaye maxay tahay dambiga ay gashay gabar 3 jir ah ee uu sidan oo dhan imtixaan iyo dhibaato ugu nooleynaya hayaag aan u imaano iyada qof walba imtixaan ayuu leeyahay ayaan leenahay dhibaatooyin ayaan leenahay ee gabar 3 sano jir ah dambiga ay gashay ee uu imtixaanayo maxay tahay mawduucan adiga su'aal daacad ah inaan ka weydiiyo ayaan rabaa adiga ahaan xaaladan oo kale dambiiluhu ma aadanaha mise waa allah aniga ahaan allah waayo qadarka qofka bini'aadanka hore ayaa loo qoray qadarku arrintaa wuu ka duwan yahay walaal waan u iman doonaa qadarku qoritaanka qadarku ma curyaaminayso doonista haddaba sidaan u aqaan aan u sheego insaanku qadarkiisu horaa loo qoray waayahay muxuu allah gabadha 3 jirka ah qadar noocaasa ugu qoraya kan kufsiga geysanayana qadar noocaasa uu ugu qoraya waan ku fahmay mawduucan qadarka ah laga yaabaa adigoonan fahansaneyn ayaad aragtidan ku fikirtay aragtidan ayaad leedahay iyadana aan ku fahansiiyo marka asal ahaan aan idhaahno tan annaga markii aan dhacdo aragno dhibaatooyinka waan arki karaynaa haa dadkuna inay dambaabayaan waan arkaynaa inay isdilayaanna waan arkaynaa laakiin markaan halkan eegno waxaan si cad ah u arkaynaa dambiiluhu inuu yahay aadanaha waayo aadanuhu waa ka doonista saaxiibka u ah tusaale ahaan maanta funaanad buluug ah ayaad soo xidhatay ma adiga ayaa doortay inaad xidhato mise qof ayaa kugu qasbay aniga ayaa doortay soo maaha tani waa doonista waxay caddayn u tahay doonista sidoo kale anigu maanta kan inaan xidho ayaan doortay sidoo kale dhammaanteen waan wada ognahay inay doonis ama rabitaan ay jirto dhacdooyinkan markaan eegno waxaan ku arki karnaa aadanuhu doonistiisa isagoo adeegsanaya inuu dhibaato sameeyo taasi mas-uuliyad saaran inay tahay waan garanaynaa ha waan aragnaa aadanaha inuu dembiga leeyahay haddana qur-aanka ayaan dembiga saarnaa sax tusaale kale waa yahay ka soo qaad dhakhtarku markuu meesha qaliinka uu galo isagoo ogna uu dadka dhan ku wada dilo midi buugaagta caafimaadka laga barto maan dembiga dul saaraynaa mise dhakhtarka may dhakhtarka ayaan dembiyeynaynaa dhakhtarka ayaa leh dembiga waayo buugga wax shaqo ah kuma laha arrinta buugga wuxuu u sheegayna muusan raacin tanoo kalena sidaad sheegtay adigu haddii uu qof bini'aadan ah uu dhibaateeyo qof kale kufsi ama dil iyo kuwo kasii badan haddii uu aadanaha samaynayo waxaan arkaynaa qofkaasi inuusan qur-aanka kariimka ahi uusan dhegaysan tusaalihii dhakhtarka oo kale sida aad buugaagta caafimaadka dembiga dusha uga saarin islaamka iyo qur-aanka kariimkana inaadan dembiga dusha ka saarin ayaa waajiba anigu islaamka iyo qur-aanka dusha dembi kama saarayo ee abuuraha ayaan dembiga dusha ka saaraya waayo sidaan horay usoo sheegayba awoodihiisa iyo weynidiisuba intaabay la eg tahaye kitaabada ayaan ka akhrisanaa waqtiyadii hore nebiyadii jiray dhibaatooyin iyo dhacdooyinkay la kulmeen waa uu ka caawiyey muxuu bini'aadanka kale u caawin la'yahay walaal bini'aadanka kale xitaa waddo ayuu tusay dhibaatooyinkan xalkooda xitaa wuuna siiyey xalkooduna qur-aanka iyo sunnooyinka ayuu nagu tusinayaa annagu waan arki karnaa xalkaas laakiin soo kuma dhihin aadanaha maadaama ay doonis haystaan arrinkan ma dhagaysanayaan sidii dhakhtarkii uu sameeyey oo kale waxaan dhahay dhaqaatiir badan arrinta saxda ah ayay samaynayaan haddii ay buugaagta caafimaadka raacaan laakiin dadka noocaas ah way soo baxayaan waayo dadka doonis ayay haystaan tanna aan sheegno allah muxuu usoo dhexgeli la'yahay mawduucan haddii aan u imaano tanina dhanka xigmadda markaan ka eegno dhacdadu waan arkaynaa tusaale ahaan aan dhahno mid baa mid kale tooray gelinaya ama xabad ku soo ridaya ama mid baa isku dayaya mid kale inuu dhibaateeyo intuusan dhibaatayn ka hor haddii uu allah si joogto ah uga hortago arrinka markaas kii wanaagsanaa iyo kii xumaa ma la kala saari karaya haddii doonista laga hortago qofna uusan xumaan samayn adiga iyo ka kufsiga geystay dhexdiina farqi ma ku haraya markaasna ka xun iyo ka wanaagsan lama kala saari doono adiguse ma dooni lahayd mid kufsi geystay inaad isku darajo noqotaan may ma doonayo laakiin ta keliya aan rabo waxay tahay allah ha xadido qof walba doonistiisa laakiin qof xun dhan yuusan jirin qof walba ha wanaagsanaado qofna xumaan yuusan samayn qofna jahannamo yuusan gelin laakiin markaan halkaan eegno sooma dhihin yacni haddii aad dhahdo ha la xadido tan kii niyadda xumaa iyo kii niyadda wanaagsanaa lama kala saari karayo hadda markaan aadanaha ayaa wasaqeeyey naftiisa haa allah waa uu soo dhexgeli karayaa in wax walba laga hortago dhammaan dhibaatooyinka markii laga hortago doonistii mid la farageliyey ayay noqonaysaa kadibna maxaa dhacaya aadanuhu wuxuu odhan doonaa anigu doonis ma lihi dembina ma lihi markaad sidaas sheegtay ujeedka garoonka imtixaanka loo furay ayaa mid faa'iido lahayn noqonaysa ka wanaagsan iyo ka xunna isku darajo ayay imanayaan adigu sooma dhihin qof kufsi geystay inaa isku darajo noqono ma rabo taa ka duwaysa ka kufsiga geystay ka wanaaga geystay iyo ka xumaanta geystay midda kala saarayso ayaa ah jiritaanka doonista waxay ka dhigan tahay doonistu wanaagu waxa lagu muujiyaa rabitaan sharkuna isagaa ismuujiya aniga
xitaa waan ka murugoonayaa taa daraaddeed ayaana u ordaya laakiin ka naxariista ina siiyey marna suuragal maaha inuu naxariis laawe noqdo laakiin wax yar dhanka ballaaran markaan ka eegno aadanuhu dhibaatooyin fara badan ayay geysanayaan haa laakiin dhankaas sida aan kasoo qaadno tusaale kasoo qaad riyo aad u xun ayaad aragtay kasoo qaad riyo 80 sano socotay oo kale oo aad u cabsi badan welibana riyadaas sidaas dhan u xun markii aad kasoo kacdo koob biyo ah aad cabto kaliya ayaad ku iloobaysaa dhibaatadii aad ku aragtay riyadaas sax ها ريو أيان ليناي وأنا كسي سعنينا riyadaas aan u malaynay 80 sano inay socotay ee aad u cabsida badnayd koob biyo ah haddii lagugu ilowsiiyey allahi arrintaas sameeyey siduu noogu ilowsiin karin jannada aan dhammaadka lahayn dhexdeeda dhibaatooyinka aan kala kulanno dunidan janno aan dhammaad lahayn ayaan ka hadlaynaa walaal الله دمان أدومدي سو جعل يهي صح ويا هي دد كان أتشكتي إني دد حن نقدان محو الله أربا دد حن يوسن كدجن هدو أودو allah wanaag ayuu nala rabaa laakiin aadanuhu nimcad ayaa la siiyey waana nimcada doonistan ay haystaan ayay amrayaan aadanuhu tusaale ahaan dabka faa'iido fara badan ayuu leeyahay soo maaha waxaan u baahannahay ayaan ka helnaa laakiin haddii uu qof intuu yimaado isagoo adeegsanaya rabitaankiisana uu gacantiisa duldhigo kadibna gubto markaas annaga ma dhihi karnaa jiritaanka dabku wuu xun yahay may ma dhihi karno waayo caqligal ma noqonayso sabab waayo dembiga qofkaas ayaa leh tanoo kalena jiritaanka doonista waa nimcad weyn ka wanaaga samaynayo iyo ka xumaanta samaynayana waa la kala saaraya aadanuhuna darajada bini'aadanimo waxa keena waa jiritaanka rabitaan tusaalahan dabka oo kalena qofka isagoo doonistiisa adeegsanaya haddii uu qof gubo ama uu toreeyo yacni haddii uu doonistiisa dhan xun u adeegsado ma dhihi karnaa markaas jiritaanka iyo abuurista doonista waa wax xun allah muxuu sidaa u rabaa ma dhihi karno sax markaan xiriirkan eegnona waxaan leenahay in doonis la abuuro waa nimcad weyn faa'iido badan ayayna leedahay laakiin mararka qaar dad xun ayaa jira sooma aan dhihin aakhira ayaa jirta oo dadka wanaagsan janno aan dhammaad lahayn iyo farxad halka ay sugayso dadka aad soo sheegtay ee naga caraysiinaya maxaa sugaya dabcan dadkaasina si cadaalad leh ayaa halkaas loogu ciqaabi doonaa haddaba arrinta qadarku aan u imaano qadarku waa wax allah garanayo haddaba waxaan leenahay hadduu qadarkeenu qoran yahay dembigeenu muxuu yahay dhacdadu sidaa maaha allah horay buu u qoray maxaa yeelay wuxuu og yahay inaan sidaa yeeli doonno tusaale yar aan ku siiyo aan dhahno 2 baawur ayaa isku wado ku socdaan xisaab ahaan ayaana u xisaabiyey kadibna waxaan idhi 8 ilbiriqsi kadib way isku dhici doonaan warqad ayaana ku qortay xaqiiqdiina way isku dhaceen waayo taasi way caddeed haddaba intay ii imaadaan ma igu dhihi karaan warqadaad ku qortay awgeed ayaan iskugu dhacnay dembiga adiga ayaa leh may waayo inay isku dhacayaan way caddeed waa sax aqoontaada ayaad ku garatay kadibna waad qortay qoraalkaaguna taa ayuu ku xirnaa waxay ka dhigan tahay arrinta qorista qadarka aadanuhu in sidan looga fakaro ayaa waajib ah waxay kaloo ka dhigan tahay haddii uu qof dembi galo mas-uuliyaddeeda qofkaas ayaa leh haye walaal su'aalihii maskaxdaada ku jiray ma fariisisay hadda si fiican welibana horay waan kuugu sheegay allah waan aaminsanaa awalba waayo koonkan sidan u weyn keligii isma abuurin su'aalihii i qasayay kuwan ayay ahaayeen keliya haye maxaad leedahay maanta mar labaad ma noqonaa aan noqon qad xasuusataa soo maaha dabcan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله